walaalayaal horta mid baan ku bishaareeyaa wadahadaladii commissionka ku saabsaneed muran ka taagan aniguna ka odayeynay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may dhammaanin madaxweynena ergadii waa diidin waxaan ku wareejinay dee niman dadkii waddankiina asadka ugu badnaa lahaa ee baamijariga ah iyo culamadiintii baan ku wareejinay waxaan jecelnay insha allahu tacaala anoo ku rajo weyn aan rajo weyn ka qabin madaxweyne muuse inuu wax yeeli doono inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono maanta waxaan idiin sheegayaa commissionka iyo madaxweynaha biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin hadday doorasha dhici weydo waxaan ka tashanaa tala la gaarayaa hoggaanka laga gaaraya shacba reer somaliland laanna waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqeynaysa ma jirto waa stagnant wasaarad qolo shaqeynaysa ma jirto waxaa dalkeenu ka dhigan madaxweyne muuse dukaan uu lahaa oo xaqdara kaga maqnaa 26 sannadood uu soo ceshaday uu leeyahay anaale taasoo ka dhigay taasna wax suurta gelaysa oo shacabka reer somaliland yeeli maaha marka waxaan leenahay insha allahu tacala ilah waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay caqliga siiyo uu danta dalka eego maanta dalkeen niyaddii ummaddu niyad buu ku nooshahay niyad jab baa ku dhacay dalkeeni niyad jab baa ku dhacay waa la sideed hoblina sameynu karlay ummaddu way kala tagtay labadii waxaan aan ku fahmi jirnay doorasho iyo nabadgelya khalkhal bay ku jirtaa way laga arkay jabhadaa samaysmay doorashada hadalkeedaba iyo haabkeedaba madaxweyne muuse maskaxiisa kuma jirto waddanka maanta institution qura oo shaqeynaya ma jirto baarlamaan ma shaqeynayo oo ogtihiin guurtii ma jirto oo dhaxalbeel gashay dowlada hoose ma jirto oo aragtaa magaaladiisa u muuqantihiin cashuur baanu bixinaa waxay naga soo noqdaa ma jiro madaxweynihii wax hagaaji lahaa in reforma sameeyo waa mujaahid dhowr xabadoodaa ku dhacay intaasuu experience leeyahay waxaa tala kaga soo hadhay madax adeeg talo kale oo madaxaan ku jirta oo madaxaya ma jirto intaa 2 sanadood baan haddaan baryayey madaxaan ka dhunkaday doorasha noo socoto aabahay kama dhunkan waa iga dhamaata aniga inaan nin qayrkay ah oo aan ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay endorse garaynay la shaqaynay intaan ka badan bariyaa ma ka bariyo shacabka reer Soomaaliya ma bariyo waxaan ka codsanayaa dadku waa wada leeyahay mustaqbalku weeye 170 dhalinyaro weeye dadkeenu inay one voice atiraahaan no ma ogolaanino doorasho la'aan ma ogolaanino dictatorship dalkan kuma socon qofka doonaan xidhaya sharciga waxaan jecelay baa sharciya waxaana doonina sharci maaha la aqbali maayo waxaan leenahay waayaal dalkan haddii aynu hadli weyno qabiil iska day weyno dalku inaga burburaya meel loo ciirsadaa ma jirto waxaan leeyahay saleebaan guddoomiye saleebaan waxaan kaa codsanaya maanta ninkaa da-weyne ma jirto bulshadeen oo xilka haya waxaan kaa codsanayaa in timeline kale soo sameeyey aan la dhaafin timeline ka soo dhaafin ayaan kaa codsanaya arrintan commissionkana waxaan leenahay commissionka anagu uma diidanin shaksi ahaan uma diidanin qofka uma diidana qabiil ahaan dhalasho dadku waa family reer Somaliland waa family maha khayr maha Somaliland waa family ilaahay mahdi weyn meel wada degan isku dhaqana abtiyo isku xilba isku waxaan diidnaa oo sharci in la jabiyo sharcigii fawsi celiyay
وكل عليه مدحوين موسى كاو مالين أبالي كله وحكلون خربنا مجرد